السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا أصحابتي قيارة شرفت لما كستو كنا شيهين gabadhii yarayda oo kansar bay qabtaa la yiri oo hadda hadlaysa nawaatana iyadoo ka hadlaysa afaarihii wiilkii maxaa la yiraahdaa sharmaake ee hiil walaal asagana maxaa la yiraahdaa meesha noogu jira oo asagana hanjabaadii iyo dhibkii iyo rafaadkii kasoo gaaray gabadha waxa weeyaan markan waayay adiga inaanad iga qabanaynin inaanad ilaalinaynin inaanad xidhin inaanad hadalkayga rabin gurigii aan ku noolaa ee mas'uuliyadiisa saartay adiga soo iriday wax kasta igu samaysay i ceebaysay waalid ii danqadeen waayay walaaleen waayay yani waxa social media ikeen wax kale ma keenay baahi aan qabo ayaan keenay ani maanta haddaan adiga daryeel ka heli lahaa ama qof kale daryeelan ka heli lahaa mustaqbal baan leeyahay iskamaan fuulxumeeyay noloshayda qof bilaadan hortiisa intaan soo istaago kamaan ooyeen ama kamaan sheegteen dhibaatadayda laakiin wax kasta waxa igu kalifay dhibaatooyinka adigu i gaadhsiisay ama xanuunkayga sababta ugu weyn ee igu kaliftay waxa weeyaan xanuunkayga inaan helo meel aan ku qoysado meel aan ku caafimaado sababtaasaan usoo hadlay laakiin aniga ma jirin cid aniga garabkayga ahayd cid aniga yacnihii doonaysay inay wax aniga iga qaataan kaliya waxaa jiray dad aniga doonayay inay caawiyaan ajarkooda iyo dee waqtigoodana ku luminayay sidii aan anigu caafimaad u helayaa adigana garab waan ka waayay aabana garab waan ka waayay adeerna garab waan ka waayay abtigayo dad iigu dhawow meeshu ka shaqeeyay iyo gurigaygana habdayr u dhexeeyo noloshayda inta soo istaagay igu moodan munira waad khaldan tahay kaala dad xamsanaas ana kusoo baadhee iska warani ma yidhaahdo way arkaa way idhaafa haddaan waalanahay dan xanuunsanayo haddaan qalqaal yahay haddaan waalcaas yahay dad baan ka dhashay iyagay qabsanahay balse ma jiraan inaga cid xaaladayda danaynaysa horena waa idinku sheegay imikana waan idiin sheegayaa ma jirto oo ma jirto anigu guri baan deganahay anigu ina yara ayaa noloshayda yani heer waxaan gaadhay aan dadkii inta isoo eriyeen ay soo caydhiyeen inaan anigu guri kiraysto lafahayga iyo naftaydii ka fikro markaan awoodi waayana idinkaan hor imi sababta igu kaliftayna waa xanuunkayga dartii qof wax iga doonayaana ma jiro cid kaloo wax iga rabtaana ma jirto anigii baan waxba haysanin maxaa la iga doonayaa okay waxaan malaynayaa gabadha yartaa waa wada maqasheen hadalka ay ku hadlayso sida wax u jiraan rabbiga raxiimka oo caadilka ayaa garanaya ma ogide waalidiinta ma garanaya anigu waalid ilmihiisa inta soo tuuro xanuun ku cayriya ama aan daryeelin haddii dantu keento oo qofka bini-aadanka aanu waxba haysanin oosan u awoodin ilmihiisii xitaa guriga ayuu ku haystaa ama qofka caawinaya u gargaaraya u kaalmeynaya tankii ku yiraahdaa waa mahadsantaha ayuu ku yiraahdaa waa mahadnaqa wuxuuna raadiyaa sida ilmihiisii ugu caafimaadi lahaayeen ama ay gargaar uga heli lahaayeen haddii aanu asagu awoodinin abtigiinu aamuso oo gabadhi garamaro ama aabihii aanu waxba ka hadlinin ama hooyadii ay gabadhii guriga ka ceyriso oo gabadhii maaragtay ayadii ay isdabarto waxa kalifay anigu ma garanayo waxa kalifay waalid inuu ilmo kaleeto haysto oo ilmo kaleeto koriyo oo kuulkuuliyo midna iban xitaa haddii ay gabadh yaro qalqaaliya tahay in laga haro ma ahan waa in gabadhaadii aada gargaar la raadisid caafimaad la raadisid aada waanisid sababtoo ah ilmuhu kulli ma wada wanaagsanaanayaan qaar ayaa wanaagsan qaar ayaa xun qaar ayaa ma aragtay caasiya mid kastoo caasiya ama mid kastoo ma aragtay xun haddaanu turno kan wanaagsanna aan reebano de adduunku waxa weeyaan saas kuma hagaagayo midka caasiga iyo midka wanaagsanna waa in la isku wada annaga caasigu waa dhib badan yahay waa aada iyo aada ayuu u dhib badan yahay adoo soo korisay oo soo kabisay oo haddana caasi kugu noqdo wareer buu leeyahay laakiin ilmaha waa in isku si loola dhaqma isku si loo wanaajiyaa wax loo sheegaa لأنه عاسق والدكيس gurigiisa ma moogaanaya xitaa marka gabadhani kulley way hadasho waxay tiri anigu waxa baraha bulshada soo dhigay waa xanuun yahay xanuunkana qofka bini'aadanka waxa weeyaan hadaad la aaminsid oo qarsatid marka dambe wuu ku soo karaya
marka dambe heer waxaa istaagaysaa aadan qarsan karinin ood macnaha ummadii aad usoo bandhiganaysa. marka ayaduna taasay samaysay. wiilkii caawinayay oo sidoo kaleeto isaguna dhib loo geystay oo macnaha loo hanjabay oo macnaha la caayayo hadlayana isaguna waa kana inaan isla aragno isagana. بالله وي وقتها من إيرانية أجري تقولي روح عليك لعنة الله عليك أنا يوحي إسكار أنا يوحي إسكار كأنه حرام بالقودة ويلا يا ما حرام بالقودة له حرام يقول تاستي إني تاستو كذا يفكر هو يا تهاي ما تحوكم معي وحبكم به معي وأيو هاي وهاي لكن صومالي وحيدي شيء كمان دايرتها حتى عاول هيدين يا هذا بس هو العقل هيدين بقى أنا هدي هو يدي فاميلي يدو أي مالي ولا قدر إن أنا عاويه ديار بارو هاي أنا نبرش العقد كأول نعم ما أنت هكذا سوي يستوي وهاي مي عندنا وهو حد عقبض البدن كلاكم بدون من يلا حنوك ما خبتها بس ما قبته واحد شيله خاطر بدن هرب مرتين هو صاحب إن أكو شيء من عذر كانسر ولوقتي إن خاطرته أحيانا بدل ما يشيلها لكن أختار كان إثيوبيا كأنه شيء عذر كأنه كانسر هو كا توبة عمدا إن اللي عصنت هاي بدوها لكم waad maqlaysaan gabadhani dhakhaatiir badan bay martay. dhakhtarka Itoobiyaanka wuxuu u sheegay tubada ma aragtay cuntada qaada inay dilaacsan tahay. gabadhu dhiig bay tufaysaa waxa keenaya cancer. dhakhaatiirtu sometimes anagu African banaay Soomaaliduna horta dhakhaatiir hore u martay ma joogto. waxay rabaan bay isaga ka sheegayaan stress baa ku hayo balaya ku hayso macnaha cuduraan ku hayn xitaa way kugu sheegayaan Soomaalida dhakhaatiirteeda because qalabna ma haystaan. dhakhaatiirtuna dadkii bay isaga barbarteen qaarkood soo waxa garata maaha. marka dhakhtar Itoobiyaan loo geeyay gabadhan wuxuu yiri tubada cuntada qaada ayaa dilaacsan oo meel ka dilaacsan cancerna wuxuu egnaa waa lagu sheegay soo waxa garata marka muhiimo gabadhana dhakhtar wanaagsan ayay u baahan tahay wadanka dibadiisa in loo qaado oo wax looga qabtay u baahan tahay hadii deefshiidka meel kan cuntada qaadaya uu dilaacsan yahay ma aragtay xidmaha cuntada qaadaya uu dilaacsan yahay waxay u baahan tahay dhakhtar dibadda jooga in laga talo ama laga hagaajiyo ama laga fiiriyo waxa qaba hadduu kansar yahay iyo haddaanu ahaynba. waxay u baahan tahay dhakhtar aad u wanaagsan. wiilkan waa wiil Soomaaliyeed oo caawinaya qamar sugaanina wuu ku jiraa isaguna dadka caawinaya oo gabadhaas la ordaya. gabadhuna hadda way hadashay sida aad cajalada ka arkaysiin hadalkeeda ka dheehan doontiin. marka waxaan leenahay waalidiinta gabadha dhalay ay hobi inay aqbalaan gabadhan in dhakhtarka la geeyo oo la caawiyo wiilashana caawiyaan. ay hobi insha Allah in muslimiintana u kacdo ay caawiso oo garab ka qaadato insha Allah ayna noo sheegaan oo nala xiriiriyaan meesha wax loogu dirayo si aan maaragtay insha Allah uga qayb qaadano. marka hooyada wiilka gabadha dhashanayna saas oo caytanta ma ahan subhanallah aabuha qof hooyada hadii maaragtay abtiga waa inuu naxo adeerka waa inuu naxo adeerka waa inuu naxo walaal haduu la dhashay waa inuu naxo waa in waxa gadaal inta la isugu noqdo wax la isku sheego. intaasaan uga baxayaa waxaan leeyahay guys ama subscribe like iyo share fadlan si videogayga saara like iyo share iyo subscribe intuba meel dheer ayay gaarsiinayaan. marka intaasaan uga baxayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maniro Allah caafiyo soo duceeyo meel kastoo joogtiin wiilasha